la wadaaga akhbaaraadkii kuugu muhiimsanaayay ku haysay iyo khudbadda Powell haddii aad dhageysanaysay wixii aad ka dhadhansatay. waa maasan tahay ustaad Khalid dhamaantiin waa idin wada salaamay xariijinana wada faantiin maalinteeda faanad maanta waxyaabo ugu weyn waxa ka mid ah in Donald Trump canshuurta uu ku soo rogay China waxa bahashaneeti kole meesha ku dhamaanayso arki doona laakiin waxa ogtahay baashite ilaa ay si socotaa mar walba mar China ku soo rogayso Mareykanka China ku soo rogayo marka goordhow in la heshiyo dadkan waxa khaasan Donald Trump oo aad pressure u saaraya Jerome Powell xorwa interesiga in uu jaro kadib waxa lacag badan suuqa soo galayso laakiin xogaa waqti ay qaadanaysaa at least weeks ay qaadanaysaa dibal ay qaadanin interesiga in la jaran waxa la rajeynaa bisha May I believe May ama June labadaas dibal dhaxdiisii waxa lagu rajeynayaa in interesiga lagu jaro taasna dhacdo waxa dad badan ayaa ku dhiiranaya hadda waxa interesiga xogo uu sareeyaa haddii la jaro dadka wanaag deeman ay soo qaadan karaan bangiyada tagaan soo qaadanaya investment sameynayo marka interesiga la saaray ay yaraanayso taasna waxa bulshada suuqa wal dhaqaajin doona inta waxa badalada iska arki doona soo kalena 22 maalmood ayaa ka soo haray FOMC meetingka oo soo socoto soo kan xaalad rajeenooya in cities lagu dhaafi doono dadka xisaabinayaan 80% waxay leeyihiin interesiga lama jarayo xawaaye cities ayaa lagu dhaafaa soo banaan waxa taas ay dhacdo si dadka xisaabiyaan laakiin bisha May June insha Allah xarjinana in interesiga la jaro ku shalay Khalid وما حسنت أستاذي أنت Jerome Powell ساعد كور speech كيس هذا الكيس وح information مكايسة هي سببها وعسر يوسف على صوت هذا كذا ما Jerome Powell حواي ولا ما دقي السنين عندك تبتدي دونا أستاذي وما حسنت سودو أحمد حاج سودو كيتا سوكر سودو كيتا ما نكاج سودو هذا لو ده وحيد أخبارات هيسو يو information إن شاء الله أيوة ما حسنتها وإذا سلامة دام بحث Somali Finance ولا مخلا رجينا ولا الخسارة مالكي ونكسنا نيوز أنت بدنا هذا الشيء لكن وحجري نيوز كل شيء جاي إنه ولد الشيء ده يبيسي بقول سجاشني أفرق كون بيتكون سيدو كلنا هذا بيقشين يسني يبيسو 8 كون أو بيتكون sidoo kale Mareykanka waxa hadatan trafficki am canshuurihi ay sameysay wixii ka faa'iiday 22 bilyan oo lacag ah wax kale news cusub ma hayo waa ma hasan tahay arinta Mareykan iyo China ma ka warhaysaa kita wallahi waa la socdaa laakiin waxay la tahay in Donald Trump ugu dambeyn oo hawshan asaga la joojiyay sababta maalin walba inuu iska qabsado yani inuu tiro cusub iska qabsado oo canshuura in 25 uu ka dhigo maanta inuu ka dhigo qol ka dhigo 245 uu ka dhigo waxay asaga turkiis waxay cadeynaysaa inuusan wax istiraatiijiyad ku isanayn wax xanaaq ku dhan ee mar walba uu Shiinaha falcelin sameeyo inuu canshuurka u sii qaado asaga wuxuu cadeynayaa inuusan ahayn canshuuraha wax istiraatiijiyad ku dhisan wax kaliya yani uu sameeynayo oo rabo wadanka inuu ku buligaray sidoo kale Shiinaha way ka falceliyeen waxay dhaheen ilaa iyo dhamaadka waa dagaalamayna yani ma Shiinaha wadan awood leh marka loo fiirinayo wadamada kale sidoo kalena Shiinaha waa wadan isku yani ma ahan wadan oo iskii yani qof walba iskiis uma shaqeysto qof walba uu shaqeeyaa Shiinaha haddana sidoo tahay qof walba wuxuu helaa wax waxay leeyihiin dimuqraadi amal ma ahan yani wadankood ku dhisan Shiinahan haday dhahaan maanta waxa sameeynaa hal magaalo hal habeen kuma qaadanaysa in sameeyo sida Mareykanka ma ahan soo dagaalka inuu dheeraanay ila tahay uu Trump sabsi wado ama sabtay walaalo waa warun ereyga ugu muhiimsan waxa weeye inaan Trump wax istiraatiijiyad lahayn waxana uu ka keenayo iyo inuu soo mar kasta waxa ka ugu dambeeya wax suura galay kulay arintaas maaha bal arintaas